iyadoo dhawaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ay soo saartay bayaan ay ku sheegayso in lagu kala saari doono meelaha lagu dabiibo oo dadka dhimirka ka xanuunsanaya ayaa waxaanu maanta waraysi gaar ah la yeelanay maamulaha rugta quraan akhriska ee Barkhad ee magaalada Hargeysa Sheekh Axmed waxaanu ka warbixiyay sida ay u shaqeeyaan iyo sida ay u arkaan bayaanka ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland. rugtan quraan saarka magaceedu horta marka hore waxa la yiraahdaa Barkhad waxaanay furreedin maka 15 sano soo iskama wataan hawsheeda 15 sano ay furreed magaceeduna rugtan quraan saarka anagu cilaaj dadka xirxira manihin quraanku maanu dadka saaraa waa rugta diin saarka inta imaka furreedna waxay noqonaysaa 15 sano waxaan isku soo dhaweynaynaa halkan tiifiyada noo yimi mowqifkan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta haddii ilaahay ka dhigo ay tidhi alla soo wado oo dadkii dee hubsiimaha lagu sameeyo cilaajyada wax ku dabiibayay markaa taa waanu soo dhaweynaynaa raalli baanaanu ka nahay 100% waxaanu anagu dadka ku wadnaana dee wax qarsoon maahe waa shay sharciyo xistiba ku habboon oo sunnihii nebiga iyo aayaadkii ilaahay aan ku dabiibayna dadka rugta quraan saarka weeyaan haddii ilaahay ka dhigo anagu dadka ma xidhxidhno dadkaa dhibaataysanee jinku gelayo ama waxaan isha la yidhaahdaa ay hayso ama dee waxaan sixirka iyo waxyaabaha caynkaasi ibnu aadamka sharwadaah ay ku farsamo xumeeyeen ayuun baanu aayaadkaa ilaahay ee shifada ah ayuun baanu saaraa wax daawooyina hadday cunis tahay hadday cabis tahay midna ma siino dadka qaar way xirxidhaan beeshada qaar ka mid ah ama waxay sameeyaan inay dadkii wax weeyaan iyagu dawooyin badan qoraan idinku barqad ahaan taas maxaa hadkii anagu walaal xagga horta qof aanu xidhanaa ma jira qofkii dhibaataysan isagoo ehelkiisa wato oo weliba dadkii ka mas-uulka ahaa ay wadaan ayaa naloo keenaa qur-aankaasun baanu u saaraa qof wiig la saaro qof bil la saaro qof looga badiyo qur-aankaasun baanu saaraa 10 waanu siinaa wax dawooyina oo amba cunisa ama cabisana aba yaraatee ma siino sidaasaan ku wadnaa anagu arrinkan la wadana raalaanu ka nahay waanu soo dhaweynayna walaal